marka la soo gaabiyo inta yani waxyaalaha kale oo dhan waa kamaaliyaad waa tahsiiniyad waa dhameystir waa laakiin qodobka asaasiga iyo tiir dhaxaadka laga maarmaanka waxa weey labada mid walba waa inuu yahay ruux diin leh oo akhlaaq leh waa inuu yahay waa qodobka asaasiga weey sidaas daraadeed baa nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiiska Abu Hurayra fi sahih al-Bukhari wa ghayrihi ayaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in haweeneyda afar sababood mid kamida loo guursaday loogu xishaa haweeney markaad guursanayso bini aadamku yani wax weey ninku afar arimood mid kamida caadada weey dhaqanka bini aadamka sidii ahaan jirtay iyo sidii hadda tahayba midda koobaad nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam limaaliha xoolaheeda waa loogu xishaa haweeney xoolaha haysata way xoogaa haysataa waxoogageedaas doonaysa inaad kula noolaato hunguri baa ka haya yani wax weeyaan xoolaheeda waa loogu xishaa waa dhacda talabaadi wax weeyaan wali xasabiha sharaf bay leedahay oo reer wanaagsan bay ka dhalatay oo reer magac leh bay ka dhalatay oo ka soo jeeda ayaduna magac iyo sharaf bay leedahay ayaduna waa loogu xishaa tasaddexaadi wali jamaaliha bu nabi sallallahu alayhi wasallam quruxdeedana waa loogu xishaa oo haweeney dhaban quruxsan way wixii quruxsanna nafta jecel quruxda in loogu xishana waa dhici kartaa oo loo doonto ama loo guursado ta afraad ee loogu xisha nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wali diiniha diinteedana waa loogu xishaa akhlaaqdeeda diinteeda afarta arimood markuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri fadfar bidati diini taribad yadak afartaas midka ugu dambeeya kulliban ku guuleyso midda diinta leh nabigu sallallahu alayhi wasallam midda diinta leh qabso oo kulliban sidaasuu nabigu ku taliyay sallallahu alayhi wasallam macnaha wax weey macnuhu ma aha diin kaliyeeta ee hadii inta kaleeta ay wax kugu darmadaan oo diin ama ay qurux kuula dheer tahay ama ay diintii xoolo kuula dheer tahay ama diintii xasab iyo sharaf kuula dheer tahay waa waxa wax lagu dartaas taa laga hadlay ee waxa laga hadlayaa qodob waxa jira isaga marna aan laga tilaabsan karin waxyaalaha kale oo dhan waa laga maarmi karaa laakiin qodobkan laga maarmi karin wax weeyaan fadfar bidati diini taribad yadak saasi macna laana gurigu miduu ku salaysan yahay taas sababta geenaysa gurigu inuu ama noqdo guri yani laga kala cararo ama guri lagu soo cararo inuu noqdo waxa keenay wax weeyaan waa diinta weey asaaska mabda uu guri ku salaysan yahay saas daraadeed kaasa muhiim ah nabi sallallahu alayhi wasallam taa ku dhig midda ku dhig nabi sallallahu alayhi wasallam taa waa xaqii dumarka xaqii ragga marka la fiiriyo lafteeda rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiidka Abu Hurayra Tirmidhi ibn Majah iyo Hakim ay soo saareen waa xadiis xasana ayaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam idha ja'akum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawijuhu hadduu idin yimaado nin aad diintiisa iyo akhlaaqdiisa raali ku tihiin oo ku qanacsantihiin u guuriye buu nabiga sallallahu alayhi wasallam yani wax weeyaan waa dadkii dumarka mas'uuliinta ka ah gabdhaha la guurinayo gacanta ku hayo yani mas'uuliyadooda aabahood walaalkood adeerkood waxa la yiri ninkaad gabadha ku aaminaysaan siinaysaan waa inuu noqdo mid diin leh oo akhlaaq la noqdo ka markaad heshaan u guuriye buu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka u guuriye hadaad saa yeeli weydaan fasaad balaaran baa dhici buu nabiga sallallahu alayhi wasallam fasaad balaaran macna wax weeyaan hadii ay noqoto qodobka la isku dooranayo nolosha lagu salaynayo la isku xulanayo haduu noqdo waxaan diin ahayn fasaad baa iimaanaya waxa ugu horeeya fasaadkaasi uu saameynayana waa labada guriga wada dhisanaya saas macna ayuu ka bilaabay marka kadib bulshada qaybaheeda kale u gudbaya laakiin fasaadku marka ugu horeyso gurigu galay marka nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam gabadhii ninka loo guurinayo ama ay guursanaysa diin iyo akhlaaq yeesho ayadii markii la guursanayeen diin iyo akhlaaq yeelato qodobkaasi waa qodobka asaasiga ee wax ka bilaabanayaan hadii qodobkaasi fiican ruuxu uga baaraandago ilaahayna waafajiyo subhanahu wa ta'ala oo laba diin la ay meeshii isugu yimaadaan waa la hayaa tiirkii ay nolosha iyo liibaanta qoysku ku istaagi lahayd waa la hayaa wixii kala markaas loo hawlgali laakiin asaaskii marka waa la hayaa macna marka qodobka koobaadi wax weeyaan in la hagaajiyo oo ruuxu uu aad uga fiirsado doorashada hore iyo waxa uu ku salaynayo inuu aad uga fiirsado waa qodob laga maarmaan awey hadii qodobka uu ruuxu ka tago ka tilaabsado waxa weeyaan waa hawshu bilowgii bay ka halowday hawl bilowga ka halowdayna gadaal in laga saxay way adagtahay laakiin hawshu haday bilowga ka saxanto wixii kale dib ka soo gala waa wax la sixi karo qodobka labaad waxa weey oo reerka liibaantiisa iyo deganaantiisa iyo xasiloonidiisa keeni kara
alqanaaca waalrida bishariik waa in oo labada ruux ay isku qancaan. ninkuna gabadhu guursanayo waa inuu ku qanco, gabadhuna ninkay guursanayso waa inay ku qancdo. waa intaan weli laysu imaanin oon guri la wada dhisanin oo aan nolol la wadaagaya aynan dhicin baa la doonayaa marka horeba in iyadoo laysku qanacsanyaho raalli laysu yahay la kala yahayo macnaha wax weeyaan lays rabo oo lays jecel yahay in laysu yimaada la doonaya. macnaha waxaa lagu leeyahay haddaad nin tahay haweenaydaad guursanayso ha noqoto midaad ku qanacday, haddaad haweenay tahayna ninkay guursanayso ha noqdo ninay ku qanacday. maxaa yeelay qanaacadaas qalbiga ah qayb weyn bay ka qaadanaysaa hadhowta nolosha iyo deganaanshaheeda, nolosha qoyska inay degto. macnaha waxaa ku tusaya in labada ruux ay isku qancaan. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis dhowr ah ayuu ku sheegaya. waxaa ka mid a xadiidka imaam muslim uu soo saaray min xadiidi abi hurayra. wuxuu yidhi abu hurayre nebigaan la joogay buu yhi sal lay waslam faataahu rajulun nin baa nebiga u yimid sal lay slm anoo nebiga la jooga ayaa nin u yimid. markaasaa wuxuu u sheegay inuu haweenay reer ansaareed a guursaday. saad ogsoontihiin saxaabadu waxay ahaayeen muhaajiriin oo raggii maka ka soo qaxay oo diintooda la soo cararay iyo raggii madiine loogu yimid oo reer ansaareed baa la yidhaahdaa. reer ansaareedkii madiine loogu yimid nin ka mid a waxaan ujeedaa nin baa wuxuu guursaday haweenay reer ansaareed oo reer madiinea. markaasaa wuxuu nebigu ku yidhi sal lay waslam markuu u sheego yidhi nebi allow gabadh baan guursaday, wuxuu ku yidhi an nadarta ilayha ma fiirisay buu nebigu ku yidhi sal lay waslam intaadan guursanin ma fiirisay. markaasaa wuxuu yidhi maya ma fiirin nebi allow anoon arag unbaa un laygu meheriyey. markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam fadhab fandur ilayha faina fii acyuni اlansaari shay-an buu nebigu sal lay waslam hadda tag buui soo fiiri. maxaa yeelay reer ansaareed indhahooda waxba ahaaday buu nebigu sal lay waslam indhahooda waxba ah muxuu yahay yani way indho yaryar yihiin buu ka wada nebigu sal lay waslam xoogaa yani waa dad yani wax weeyaan yani lagu xanto inay indho yaryar yihiin iska soo fiiri buu nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh. saas daraaddeed buu nebigu sal lay waslam amar caama ummadda siiyo wuxuu ku yidhi ruuxu markuu guursanayo intuusan guursanin ha fiiriya haweentuu guursanayo. oo maxaa u fiirinaysaa? xataa waxaa loo ogolaaday sida sawaabka iyo saxiixa ah inuu fiirin karayo haweentu gurigeeda markay joogto, yani waxa wey jirkeeda haaliban inta bannaan inuu fiirin karayo hadduu guur u socdo wey macna. oo macnaha waxa wey gacmaha iyo lugaha iyo maalan madaxa oo kaleeto iyo inta gurigeeda markay joogto caadatan inta ka bannaan hadduu guur u socdo inuu fiirin karayo. laakiin see buu ku gaari karaa? mayadii buu dhahayaa ii bannee, ma meel buu ugu dhuumanayaa? hawlu taallo way taas. taasi waxa weeye farsamadeeda suu keeni laha hawl isagu taalo waay. laakiin shareecadu waa u ogolaatay. maxaa loo ogolaaday? su-aasha isweydiidale waxay tahay haweeney ajnebiya inaad fiiriso xaaraan bay ahayd. maxaa xaaraamtii loo ogolaaday? waxaa loo ogolaaday sababta guri baa la dhisayaa. guri haddii la dhisayana waxaa la doonayaa in qanaaco lagu saleeyo. qanacsanaantuna ma imaan karto oo dadku iskuma qanci karaan ilaa is arkaan. saas daraaddeed shaygii xaaraam ahaa waxaa loo fasaxay calashaani gurigu inuu ku salaysmo ku dhismo dad isku qanacsan. yani shareecadu meel fog bay marka wax ka fiirinaysa. marka fiiri baa la yidhi, nabigu soo fiiri buu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh. waxaa sugan saxaabada qaarkood ridwaan ullaahi calayhim in ay yani waxa wey markay guursanayaan sida haddaan sheegaynoo kaleeto in ay runtii ay si kale hadday ugu suuroobi weydo xataa inay intay meel laaba u galaan ay fiirin jireen haweenta markay guur ula jeedaan wy macna. markii haddaadan guur jamacsanayn maya. taasi waa xaggii ragga. xagga dumarka sidoo kale nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis abu hurayra uu warinayo fii saxiix muslim kadalik ku yimid ayaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam laa tunkaxu alayimu xataa tusta'mar walaa tunkaxu lbikru xataa tusta'dan. haweenayda guur u horeeyey ee garoobka ah wuxuu nebigu yuri sal lay waslam yaan la guurinin oo yaan la meherinin ilaa iyada amar la weydiiyo. macnaha maxaa laga wadaa? ilaa iyadu ninkaa loo guurinayo ay ku qanacdo oy amar bixisoy tidhaahdo ha lay guuriyo. iska guuri wax ma jirto, iska meheri ma jirto. hadday gabadh tahay aan hadda ka hor guur u horeynina nebigu wuxu uhi sal lay waslam ayadana yaan la guurinin ilaa idan la weydiiyo.
oo maxaa u dhaxeeya amar in la weydiiyo iyo idan in la weydiiyo midii guuru horeeyay waxa la yiri amar waa inay bixiso midii aan guuru horeynina waxa la yiri idan inay bixiso idankii amarkuna waa kala xoog badan nabiga waxa la yiri sallallahu alayhi wasallam oo la weydiiyay tan ayada garanay guurku horeeyo iyadu inay tiraahdo ninkaas hal la ii guuriyo iyo marrabo yaan la ii guurinin ka xishoon mayso laakiin waa su'aal nabi Allah gabdhuhu yararka waa xishoonayaane markii la yiraahdo ninkan ma lagu guuriyaa maxaa hadaba iska aamusto maxaa lagu sameeynaa way hadli weydaba nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam idnuha sukuuta hadayba aamusto macnaheedu waxa way raali baan ahay way hal la guuriyo maxaa yeelay si kale loo gaari waa haday diidan tahay macna way hadli lahayd laakiin gabadhu maadaama aynan aqoonin yaani waxa way gabdhuhuna wax xishoon jireen khaasatan gabdhaha yaryarka ee guurka gaadhin adduunka hadda isku dhax tasaqmay ma ahayn xishood baa gaalibka ah nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam haday hadli weydo markii ninka loo bandhigana ay aamusto macna aamuskaasi waa ay guuriyo way maxaa la leeyahay marka gabadh yar oo aabaheed qasbi kara ma jiro ninka iyadu guursanayso waa inay ku qanacdo raalina ku noqoto kadibna ay idan bixiso haday idan bixin kari weydana aamuskeeda ayaa idan abu nabi sallallahu alayhi wasallam haday haweenay guuru horeeyay tahayna ayadu waxa way warkeeda iska wadhaaf ayadu amar inay bixiso macnaheedu waxa weeyaan marka ninka ay guursanayso iyada khiyaar u leh wala aaban qasbi karin wala awooban qasbi karin wala cid kale qasbi karin laana noloshan ay doonayso inay gasho baa la doonayaa sidoo ninkuba ugu qancay inay iyaduna ugu qancado laakiin nolol aynan ku qancin iyo ninaynan ku qancin in yaani wax way qoorta loo galiyo abadan saas daradeed baa Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah fi sahihihi wuxuu baabeeyay baabun idha zawwaja ibnatahu wa hiya karihatun fa nikahuhu mardud haduu gabadhiisa guuriyo ayada oo diidan guurkiisa waxba kama jiro Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah sahihiisa ku baabeeyay markaas wuxuu keenay xadiidkii Khansa bint Khidam al-Ansariya aabaheed baa guuriyay ayada oo ninna u horeeyay guurka ninkana aan jeclayn ayadan rabin buu aabaheed qasab ku guuriyay markaas nabiga uu timi sallallahu alayhi wasallam markaas nabigu faradda nikahahu aabaheed guurkii uu guuriyay nabigu waa celiyay sallallahu alayhi wasallam waxba kama jiraan adiga dumarka ma qasbaysaa baa ruuxa waa ruux xor ah ruuxi khiyaarkiisa leh waa ruuxu doono guursan ruuxu doonana diidi mujarrad waxa la doonayaa gabadhu markay ninka guursanayso in loo ilbadiyo loo indhabadiyo oo si aan loo khayaamin oo loo sirin ilaan waxa weeyaan inta badan raggu yaani dumarka waa sirayaan waa khayaamayaan waxaan jirin buu ku akhrinaya waxaan jirin wuxuu ku leeyahay yaani magaaladan adkaysiyo waxaan aniga ii wada shaqeynaya mana jiro wax jira ma boqol beenood buu ku akhrinaya bal Soomaalidu waxay tiriba oo ku maamaada yaani waxay yiraahdaan beenna waa lagu soo xirageliyaa runna waa lagu dhaqaabay dhaha markaas daraadeed ba beentaasi dumarka loo sheegayo si looga salgaadha waxa la yiri ra'yigeeda ha lagu lamaaniyo ra'yiga waalidkeed aabaheed walaalkeed rag iyaga is yaqaanee yeena talada gooni la noqonine hala tashato oo iyadu ha iskula qanceen ninka loo gurinayo gabadha maaha marka mas'alad cadaadis ma laakiin waxa laga taxadaraya gabadhu inaysan meel munaasaba ku dhicin baa la rabaa inay meel munaasaba gasho la doonayo meel aan munaasaba ahayn inay ku dhacdo yaa la diiday saas daraadeed baa walaalkeed iyo aabaheed iyo taladii lala wadaajiyay ayaguna ma qasbi karaan oo cali ma qasbi kartaan waa inay iyadu raali ku noqoto ninka guursanayso ujeedadu maxay tahay marka qasadkeenu waxa weeyaan labada ruux asaas waxa uu noloshu inay hagaagto qoyska inay labaduba isku qancaan oo gabadhu raali ku tahay ninka loo guurinayo oo ku qanacdo ninkuna gabadhu guursanayo inuu ku qanco oo raali ku yahay waxa kamida asbaabta keeni karta inay gurigu ama qoyska noloshiisu ay fiicnaato oo ay hagaagto waxa kamida guriga marka la dhisayo asaaskiisa hore waa in lagu dhiso ilaahay cabsidiisa subhanahu wa ta'ala iyo taacadiisa saadog soontiinba ilaahay baa maamulka adduunka gacanta ku haya cid kale ula talisana ma jirto quluubta bini aadamka khaasatan ilaahay gacantiisa ku jiraan subhanahu wa ta'ala meesha bini aadamku uu ka raaxaysto ka xasilo ka dago ama hadii uu ka qasmo uu san nolosha dhamma ka qasmayso waa qalbigana ayaa gacanta ku haya ilaahay baa gacanta ku haya subhanahu wa ta'ala sida nabigeenu yiri sallallahu alayhi wa sallam alqalbu bayna asbi'ayni min asabi' arrahman yuqallibuhu kayfa yasha
qalbigu ilaahay subxaanahu wa tacaala laba farood oo farihiisa ka mida bay qalbigu dhexdooda ku jiraa siduu doonuna ilaahay u rogrogaya subxaanahu wa tacaala siduu doonuu ka yeelaya ciduu doonuu ku diraya qalbigan ciduu doonuu jeclaysiinaya ciduu doonuu ka sii jeedinaya ciduu doonuu ku soo jeedinaya yani waxa way mabduu doonuu gelinaya mabduu doonuu ka shubaya ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigan isagaa maamula qalbiga labadii ruux qalbigoodii in lays ogolaysiiyo lays jeclaysiiyo yani waxa way laysu barakeeyo dad isku kalsoon